waxaa magaalada Gurceel lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay urur siyaasadeedka Ramaas iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiin, dhalinyaro, haween iyo mas'uuliyiin ka tirsan ururka. Munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa goobta hadallo kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, musharixiinta ururka iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan urur siyaasadeedka Ramaas. caawa waa habeen weyn aan u fadhino xalfadda ama munaasabadda daafurka ururka Ramaas ee degmada Gurceel. waan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashiin xafladdaas qiimaha iyo qaadaha leh oo ururku ku soo bandhigayo maanta daafurkiisa iyo ololihiisa ku aadan degmada Gurceel. waa ururkii dhalinyarta, waa ururkii rajada mustaqbalka dhalinyarada iyo himilooyinkooda ay ku rumayn lahaayeen. odayaasha gabdhaha dhalinyarada ah wiilasha aqoon-yahanada ah oo dadka meesha musliimada dhan waxaan ku salaamayaa salaanta ugu muhiimsan oo isku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. si gaara waxaan ugu hambalyeelayaa ururka Xamaas. waa maskax fiican oo curasho qurux badan leh. waa maskaxdii koowaad oo timid degmada Gurceel ka soo dhacday caasimadda. wax aad iyo aad loogu taxawo aniga marka farxadeeda lama koobi karo. odayaasha waa ka tirsanahay, dhalinyarada waa ka tirsanahay, haddana waxaan diyaar u ahay inaan ururka ku biiro. waxaana diyaar uga sii ahay inaan musharax ka noqdo meeshii aan ka geli lahay markaas aan ka tilmaanto bulshaduna ay soo saarto. inaan u mahadceliyo madaxda xisbiga Ramaas ee nala joogta, sidoo kale odayaasha dhaqanka Adeer Cali Daah iyo adeerka kale inaan inkaas gooni ugu mahadceliyo oo caawa noo soo camiray xirfadan. runtii sharaf inoo tahay inay nala joogaan nabadoonnada nabadoon Cali Daah, Maxamed Ibraahim iyo nabadoon Cabdullaahi Xirsi Dhow. aniga waxaa la yiraahdaa Mustafa Farsamo Sibriye, waxaan ku dhashay Gurceel. waxaan rabaa aan u taaganahay mid ka mid ah xuraasta Galmudug ka furta Gurceel kursi yaalaan rabaa insha Allah inaan qaato oo aan xisbiga Ramaas iska soo dhex jaro. odayaasha dhalinyarada gabdhaha dhammaan marti sharafta meeshaan maanta timaaday waxaan uga mahad celinaynaa ka soo qaybgalka daafurka xisbiga Ramaas ee degmada Gurceel. waxay noo tahay sharaf ka soo qaybgalkiina aad ugu mahadsantihiin. dhalinyarada taasaan ugu hambalyeynayna. magacayga waa Cali Axmed Cabdi, waxaan ahay wakiilka u qaabishan ururka Ramaas ee gobolka Galgaduud. waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha xafladda, nabadoonnada, dhalinyarada oo gabdho iyo wiilalba leh, culamaa udiinka, aqoon-yahanada, ganacsatada, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacdi salaan, caawa waxaan joognaa daafurkii xisbiga ama ururka Ramaas ee degmada Gurceel. runtii waa xisbigii dhalinyarada, waa xisbigii jiilka cusub, waa xisbigii la rabay in lagu ciilbaxo oo dhalinyaradu ay ka faa'iidaystaan. waxaan u baaqaynaa dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba inay ka faa'iidaystaan, isdiiwaan geliyaan, xisbigooda yacni ay ka aqoonsadaan axsaabta kale iyo xisbiyada kale. waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii sida muuqata dhalinyaradii waxbaratay ayaa halkan ku dhan, wiilal iyo gabdho. kulley waxaan is leeyahay waa kuwii xaq u lahaa inay dalka hogaamiyaan, waa madaxdii berrito. waxaan leeyahay soo dhowaada. waxa hadda meesha aad ku aasaasaysaan iyo ururkiisnana kii guulaysto Allah ka dhigo, annagoo dhanna aan wada guulaysano. waana mahadsantihiin, waana soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsannahay. dhalinyarada, odayaasha, culamaa udiinka, waxgaradka, bahda saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaamka bacdi, waxay xafladdaani daaran tahay sida warbixinta amaba boorka iga dambeeya ku qoran
daahfurka degmada Gurceel ee xisbiga Ramaas. xisbiga Ramaas waa soo dhaweynaynaa, gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay Soomaaliya waxay u guurtay xisbiyo iyo qof iyo cod, marka qolo walba ayaga xisbigeeda inay dhisto waana ku mahadsan yihiin, waana ku bogaadinaynaa. ka odayaal ahaanna waa soo dhaweynaynaa. xisbiga soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad ka soo qayb gasheen daahfurka xisbiga Ramaas, xisbiyada Ramaas. halhaysaa jiro Ramaas naba kala lahana waa lagu soo kala horeeyaa la dhahaa. cidi idinkama xigto, xisbigu waa idin furan yahay. waxa aad gashataan maanta ayaad beri ku leedihiin. waxaan rabaa runtii inaan mar kale idinkaga mahad celiyo kasoo qaybgalkiina iyo sida xafladda aad usoo camirteen. magaaladiina adinka waa isu ogtihiin. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala xisbiga Ramaasna inuu magaalada waxa ay mudan tahay idinkana aad mudantihiin uu ka qaban doono insha allahu tacaala marka aad codka siisaan musharaxiinta idin hor fadhiya labada heer ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka. insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa guddoomiyaha degmada inuu kasoo bixi doono isla xisbiga Ramaas haddii la yiraahdo iyo dhalinyaradaas quruxda badan horteeda joogta insha allahu tacaala.